xiriirka dowladda iyo culimada inaan adkeenno taasna runtii wax naga maqnayd yahay anagana waan ka shaqeynayaa inaan adkeenno xiriirkeena waxaan ka codsanayaa mar kale anaga waajibaadkeena waa qaadanaynaa oo ammaanada noo dhibteen oo aad u aaminteen inaan idin hayno sida uu sheekh yuusuf sheegay anaga qaybteena waa qaadanaynaa idinkana qaybteena waa qaadataan oo dadka aad ku wacyigelisaan dowladda in la taageerada aan ku soo celinayna mar walba amniga kaliya maaha amniga waa kow amni haduusan jirin wax kaloo oo jiri kara ma laha waan u wada istaagno amniga tan labaad waxaa loo baahan yahay dadka inaad ka wacyigelisaan in la bixiyo canshuuraadka masaajidada marka laga akhrinayo khudbooyinka in lagu adkeeyo dadka canshuuraadka in la bixiyo aniga waxaan ila xukuumadihii na soo maray markii burburka dhaca kadib laga soo bilaabo cabdulqaasim laga soo bilaabo ilaa hadda lagu yimaado afar walxaato ay xukuumaddaanu ay samaysay dowlad samaysay ma jiro waxa ay samaysay dowladdani oo koowaad maalinta ay timid ilaa maanta ay joogto mushaarka shaqaalaha waxaa nagu maqaano ah oo macluuma 8 laga bilaabo ilaa bisha 3 kale laga gaaray in la baxsho dowlad samaysay ma jirto qodobka labaad wax alla wixii maxaabiis adduunka ku uray ay jasheen markaasay koox u keeneen hadday hindiya tahay hadday libiya tahay hadday yeman tahay hadday meelo kale tahay dowlad ku guulaysata oo waxaa samaysa ma jirto ayagoo hal sano iyo bilo ay joogaan qodobka saddexaad dowladda waxaa diray khaliijkaa diray khaliijka markuu diray waxay yidhaahdeen hadda alla ku run yahay dowladdu waxay tiri annagu dhexdhexaadan kan dadkaas walaalahan qodobka afaraad soomaaliya waxaa lagu yaqaan taariikhda inay tahay 190 dowladood midda ugu hooseyda xagga musuqmaasuq ama ugu sarreysa inay tahay oo dowlad ka sarreysa musuqmaasuq aysan jirin marka xukuumaddaanu ay timid waxa weeye waa shaqay qabatay ilaa laga gaarsiiyo in la yidhaahdo daynka soomaaliya lagu halayna waa laga dhaafaya